السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش qiimaha badan maalin wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywood-kii koonfur Hindi maxaa ka cusub ayadoo Pushpatu ciwaanada u haysto record-ka weekend-ii uu sameeyay laga doodayo haddana Baba of Bollywood ciwaanka qaadsan Daydud oo laadar qamarji waale ee ku matalaya filimka Baggy 4 oo Tiger Shroff hogaamiyay kaya boosterkaas oo Baba of Bollywood soo bandhigay meel kasta maanta baraha bulshada soo bandhigay asigoo qaynana waxa dhiig ku yaala soo cabaadaya dabcan dhabtan oo ku haysta gabar dabcan meedkeeda ama dhaawac qatar badan ku jirta marka waxaan lagu soo dul qoray every ashaq is a villain qof kasta oo wax jeclaado waa laadar marka sandeedu wuxuu ka soo jeedaa jacayl ku soo jeeda waxaan isleeyahay malaha gabadhiisa ma jacayl dartiis u dhimatay lama oga laakiin statementigaas oo hadalkaas filimka lagu soo dul qoray dialogaas iyo sidoo u qaylina odaga dhiig ku dhex jira gabadha uu gacmaha ku haysto waxay ka dhigantahay marka sandeedud oo lagu yaqaan presence markuu shaashada soo galo sida uu qamarji u yahay alle waxba ka dhici doona Tiger Shroffna waa ka warqabnay boosterkii laga soo bandhigay waxay asoo dabcan suuliga masqash tuunji ku fadhiyo wada dhiig badan oo baangadeesto dabcan ku soo warnaay marka ilaa hadda labada booster ee Baggy 4 laga soo bandhigay waa roughness qamarjinimo iyo waxa ka muuqato iyo bahalnimo baagiyaasha waxa ku naqaan boodbood iyo orad iyo xarago this one waxa waay maadaama nin koonfur loo dhiib ee Harshamal lama aqaan director laga dhig karna taa ka soo jeedo bahasha waxay noqotay baangad iyo dhiig saxal iska keeni doona filimkan 5 September oo soo baxa waxa director-ka ee Harshamal lagu magacaabo dhankaas ka soo jeedo koonfur waa ninkii sameeyay jecla filimkii Vedamia oo odaga uu sameeyay Raj ninkii afqamash ama afjab Dr. Shiva Rajkumar uu sameeyay gabdhaha xaqooda u dooday waa director sheekooyin fiican sameeyay qaano Saad Nadidwala producer kana Nadidwala garansona filimkan iskala taxanaha Baggy qaybta koowaad hiidu ahay oo 2016 soo baxay qaybtii labaad Baggy 2 Black Panther 2018 markuu Tiger big star noqday qaybtii ka 2020 follow noqday sababta asigoo 10 cisho masrax saaran oo 92 karar maray ganacsigiisa karoonihii baabada la soo nafshay mooyinka marka saas ku fashilmay laakiin hadii waxaan isleeyahay san dhici lahayn karoonihii at least 150 karar waa gaar lahayd kii super hits ka noqon lahaa inkastoo Baggy 3 labada Baggy kale uusan gaarin this time la kada sheekada waxba laga bedel roughness qamarjinimo muuqato Baba of Bollywood soo dhawaad lana filimkan 5 September oo soo baxana Nadidwala garansona meel gelinayaan marka hadal haynta cirka sare Baggy uu sii galsan Daydud idinkan aragtidiina ka dhiibtay inkastoo taageerayaasha Salmaan xanaaqsan yihiin waxaan arkay meel kasta waxay galayaan commentida Nadidwala garansona soo dhigeen baraha bulshada sawirkan sanad waxay leeyihiin waawe Sikandar abida u baahnay ilaa hadda filimkii ma ka heen Faris to look kama heeno waxba nooma sheegtiin maalinba waxaan ugu dul dhawaaqaysin ilaa hadda waxay dhaheen Baggy 4 dabcan ka soo bandhigteen booster Tiger Shroff haddana sandeedud waa kana laadar soo bandhigteen House Will 5 aan ugu dul dhawaaqdeen oo doobistii la guda galay markabkii adduunkii markii dambe waxa soo bandhigteen shaqadii dhamaatay Sikandar maxaa ku istiin aabin cunay taageerayaasha maqan caadi waxaan aqsan waxay taageen war Sikandar wax nooga soo bandhigay waxaan anaga ma rabnay saasay tahayna Baggy 4 iyo House Will 5 waxa ka soo horeeyay Sikandar oo soo baxay toddobaadkii Ciidul Fidriga oo Mars soo bixi doona dabyaqadeeda soo baxay marka waxay taageen film Mars sidaan dhow soo baxay way looga laayay wax poster wax nooga siin laadin wax September soo baxay naga dawareynaysa noo kala wada camal taageerayaasha maqan waa xanaaqsan yihiin laakiin anyhow posterkaas waalidan soo qaadan idinkana commentidina ka dhiibta marka waxaan soo qaadanayna gabadha lagu magacaabo Rashmika Mandana filmkeeda Girlfriend maal dhaha ayaa laga soo bandhigay teaser yar oo kooban fariin dabcan waxa waa ayada hogaamiye ka ah film woman centric waa daruufa ee la kulmay si xaalada iyo waxay ku matalaysaa small town gaal ku matalaysaa gabar iska daruufa qabsanaysa nolol caadi ku nool gabadha hadda Pushpatu waa magaalka u saaran oo hawada si aan caadi u galay animal cirka ku sii gashay xogaa marka waxay isdhaahday Pushpatu animal hadda magaal ku gashay producerada u tag lacagtada ka qaada adiga kaliya hogaamiye noqon marka tartiibteeda hadda filimkan soo wada teaser yar waxa laga soo bandhigay oo fariin lagu diraa leeyahay Rashmika Mandana kaliya soo baxday gabadhii Pushpatu animal nooga yaabsatay marka maanta ayadan ciwaanada qayb ka tahay waxay leedahay fariintaas soo dirtay marka filimkan The Girlfriend waxa laga soo bandhigay teaser yar oo symbol iska kooban qof kasta markuu daawado qalbiga ka xadaysa emotion yar uu leeyahay symbol gaal waa gabadhii maba ahaan baxanaaqa badneed oo animal ku jirta iyo hadda Pushpatu Allu Arjun garab istaagis maba ahaan marka waa xariifad waa qoftan film weyn ah toore la qabsanay film yarna xeelad ana gadaayo visual hadda teaserkiisa kaal iska aragu ahay qaabkaas loo dhigay hadda wax ma qiyaano ma ahan waa iska sheeka macquul ah oo Rashmika Mandana ku saleysan marka teaserkaas bal laga wardoon xogaa waa iska yara fiicnaa kulli hadii laga soo bandhigo teaser mar dhow waxaan isla filimkan wala daawana film aan dhaweyn teaser laga soo bandhigi lahayn marka waxaan soo qaadanaa Pushpatu wuxuu noqday filimka ugu dhaqsiyaha badan ee 800 karar ku gaaro muddo 4 maalmood oo kaliya Khamiis iyo Jimco iyo Sabti Axad Arbacada gelinka dambe xitaa ugu dar 4 maalmood iyo bar 800 karar haystiin haye toddobaadka duu dhamaadana kunkiisa karar banaanka waa kun karar markaan toddobaad isla xirno waxaan u jeesanaa hal xiraale ee toddobaadka labaad maxaan u shaxaadi karnaa kan saddexaad maxaa ugu
dari karnaa kan afraad maxaa ugu dari karnaa kadib le waxay noqonaysaa markaas 10 Janaayo markii la gaaro game changer iyo Daku Maharaj markay soo baxaan Ram Jaran iyo MBK shaleemooyinka qaadanayaan maane intaas muddo bil odaga waa baashaali doona marka waa la kala qaybsanaa marka Allu Arjun awoodiisa star powerkiisa Farst week kun karar ku keenaa sida muuqato inta kalena waxay ku xiran tahay sheekada filimkan hadda positive waa waxaan isleeyahay marka filimkan ma baha kan doona haduu 800 karar ku gaaray 4 maalmood sida shabakadooda isku raaceen dhanka horta producer figure aan ka bilaabeynaa oo producer balaayo waa horta noo kaadi nimanka filimka iska caadi nooga waalaan waxaan ka bilaabeynaa box office indii iyo waxay dhaheen xadiisa koowaad ganacsiga uu sameeyay 4 days ganacsiga ku tilmaameen Bushbatu waxay taagan yihiin box office ka wixii uu sameeyay film sameyn kara malahan xalan waa soo qaadan haddana way ku celishan waxay leen score wal box office ka waa la jabiyay Bushbatu waa jabiyay laakiin lacagtan waxa waa inay 80 karar at least gaaraan sababta huge Sunday waqad ilaa hadda lacagta waa la saxan waana filimkii ugu horeeyay waxa la 100 karar oo gross money hal maalin soo xaray qaybta afindiga waligeed ma san dhicin marka 80 karar guarantee waa inkastoo box office indii xogaa conservative iska yihiin 75 karar meelahaas ku adkeysanayaan waxa qasab aan waxaan qabaa week ending markii laga baxo Bushba lacagta intay ku laabtaan revisor ku sameeyaan ay markii ugu yartay 5 karar waa ku dari doonaan haddana waxay leeyihiin saaxiibayaal filimkan wuxuu marayaa sida ay shaaca ka qaadeen 265 karar soo daabacay muddo 4 maalmood ay kaligood 265 karar taageen laakiin shabakadaha kale ka badan ay taageen kulli lacagtan box office indii waa kulaa ayaga ma jeclo orad ma jeclo waxay jecel yihiin xoogaa inay wax gaagaabiyaan kadibna xogta ay gadaal ka saxaan laakiin xogtan waa ku laaban doona 265 maalmood oo ka badan yahay filimka Bushbatu markii aan fiirno teamka filimkan iskala waali waay waxay leeyihiin maalinkiisii afraad wuxuu keenay 86 karar oo keen lacagta nadiifka dhahan waxay taagan yihiin maalinkii waa 72 karar maalinkii labaad 59 karar maalinkii saddexaad wuxuu keenay 74 karar maalinka afraad wuxuu keenay 86 karar 291 karar lacagta nadiifka ay teamka filimka marsiinay ama waxa loo yaqaan producer figure oo Taran Adrar soo daabacay My3 Movie Maker soo daabacayso T-Series soo daabacayaan marka waa 291 karar lacagta nadiifka box office indii 265 karar 270 karar xitaa iska dhig laakiin 20 karar farqiga u dhaxeeyo that's too much meel dhaxal soo imaadeen hal soo wareysay laakiin lacagtan aad ay noogu badan tahay dhinaca markii aan fiirino shabakada caanka ee Sonic dhankooda maxay soo daabaceen ayagana waxaan eegaynaa Sonic waxay soo daabaceen xoga kala duwan oo kaga hadlayaan filimka lagu magacaabo Bushbatu iyo ganacsigiisa iyo halka uu gaaray ayagana waxay qirteen in dabcan axadiisii koowaad 85 karar hindi uu gaaray box office indii la Bushbatu ku dhagamaan cid kale ku dhagan male waxay kaloo leeyihiin filimkan hadda markay muuqato axadiisii koowaad wuxuu soo xareeyay 141 karar lacagta nadiifka oo language ka hadleen totalkan waxay leeyihiin hadda filimkan wuxuu maraa daawadaya lacagta nadiifka 500 karar ka tilaabeen 529 karar oo keen waa all indie language ka hadlaan 529 karar 4 maalmood lacagta nadiifka 500 karar laga tilaabay gross money-na gudaha hindi all language wuxuu soo xareeyay 632 karar baran dhinaca kale suuqyada caalamkan wuxuu ka keenay 168 karar sida shabakada Sonic ee daawacayso World War Gross Sonic waxay dhaheen 800 karar ayuu ka tilaabay filimka Bushbatu 800 karar iyo bar ayay dhaheen shabakada Sonic taasoo huge amount ah sida hadda muuqato filimkana ma hakan doona iskoorada uu sii wadan doona Allu Arjun wuxuu sameeyay xujo ee adagta isla in la jabiyo hadiiba 4 maalmood ku soo xaray filimkan 800 karar sida hadda ishaaca ka qaaday shabakada Sonic wixii ka soo kordhin waa arki doonaa dhinaca kale hadii aan filino shabakada caanka ee lagu magacaabo Andara box office ayagana saaxiibayaal waxay leeyihiin filimka Bushba ay ka soo qaateen qodob ay kaga hadlayaan maanta isniin iyo ganacsigiisa halka uu marayo sidoo kale tan waxay leeyihiin isniintiisii koowaad ilaa waxay soo qaateen waqtiga hindi markii laga tilaabo 2 pm xilliga duhurada hindi waa si dhaafa maadaama waqti ay naga horeen afindi waxay leeyihiin waa super strong 5,000 oo show laga daawanaa iyadoo ay tahay dabcan maalin dabcan isniin oo working day sidoo kale tan lacag 6 karar oo gadaal iska marsiy hadii la barbardhigo jimcadii ganacsigu uu sameeyay ilaa duhurkiina 11 karar oo keenay marka farqiga u dhaxay wax weyn ma ahan maanta waa guarantee marka 50 karar kan lacagta nadiifka qaybta afindi uu soo xareen doona sida hadda shabakada box office indii ee leedahay waxa kale oo jirto Delhi iyo marka la fiirsho Bombay iyo shaleemooyinka waaweyn isniinta waxa la xitaa hada subaxdii hore si fuul ku bilaado waxaana ugu wacan maadaama axadii capacity issue ee dhacday meelo badan laga waayay filimka laga daawado tan waxay keentay marka hadda inuu Google xaar u tahay isniintan inuu si waali u sii gadmaayo Monday record wadada ku soo jirto hubanti ahaan oo filimkan waxa leeyahay wuxuu keeni doonaa waxaan hore loo arkin haduu Monday isniintiisii koowaad uu keeno content karar waligeed ma aysan dhicin film xitaa fasaxeys intaas ma keeni karo waxa kale oo cajiib barta book my show ayadoo isniin ee maanta working hour tahay maalmo la shaqeysana working day tahay saacad kasto content iyo 1,000 oo qof wala tigidhka goosanaya barta book my show kan waa
kacay marka hindi hadduu mar film kaco maba ka haraanba weliba gaar ahaan dhanka waqooyiga sababto ee 51 kuna saacad kasta tigid goosanaysa marka maanta inuu 50 karar ka tilaabayo hubanti ahaan lama diidan sida hadda muuqato oo recordkaasna uu sii wadan doono filmkan sidii la soo daabacayo Pushpa 2 iskooradiis intaas kuma eka saaxiibayaal waxaa la soo qaatay markii la fiiriyo filimada afarta maalmood ugu horeysa World War Garoos ganacsigooda ugu xawaaraha sareeyaan Pushpa 2 kaalinta kuwaad ku jira ama Pushpa the Rule 800 karar ka tilaa afarta maalmood ugu horeyso Bahubali 2 afarta maalmood ugu horeyso wuxuu keenay 625 karar RR afarta maalmood ugu horeyso wuxuu keenay 564 karar KGF markii la fiiriyo afarta maalmood ugu horeyso wuxuu ku soo xareeyay 540 karar Jawan afarta maalmood ugu horeyso wuxuu keenay 520 karar sida darteed marka Pushpa 2 inuu 1500 karar gaara iswarsi ma lahan baadiba Bahubali 2 iyo RR iyo KGF iyo Jawan oo kun karar ka tilaabeen ganacsigooda uu laba laab ka badan yahay qaarkood afarta maalmood ugu horeyso ganacsiga World War uu sameeyay marka Allu Arjun waa tagay inta hadda qabsan kartana mala sida muuqato record by record iska daba dhacayo sida hadda la soo daabacayo sidoo kale markii aan fiirino waxyaabaha kale la soo daabacayo waxaa kamid dhanka waxaan soo qaadan karnaa maalinka afraad iyo highest share ugu badan dhankaas iyo Telugu ayaa shabakad T2B soo daabacday markii highest share la dhahana waxaa ugu badan Pushpa oo axad waali qaatay maadaama 27.86 karar share laga helo Telugu record uu sameeyay kalkii uu ka tilaabo oo 26 karar soo xareeyay share ahaan maalinkiisa afraad recordkii kalkii uu laga jabshay waxa ku xiga Salaar oo 18 karar day4 laga helay RR day4 share laga helay waa 17.23 karar Bahubali 2 14.65 karar Sarkaari Vari Batane 12 karar ayaa share ahaan laga helay asigana recordkiisii waa la dhaaf sida hadda muuqato marka ninkan Allu Arjun waa imaaday score walbana uu jibinaa sida hadda muuqato oo Telugu hadday noqon lahayd email kastaba maadaama trending waali filmkan uu sameeyay maanta isniin maba ku sii jirtaba wax kasta laga filan karaa marka saaxiibayaal hadda Pushpa la wadayna mahane wax kale to hadda soo jira malahan shabakad T2B waxay ku adka 800 karar ka tilaabo waa la isku raacay ganinka damaanta markii xogahaas la soo saxanay waa soo qaadan doonaa filmkan iyo waxyaabaha kale ka soo kordha laakiin hadda wuxuu qaatay huge weekend iyo qaasada hadda muuqato 800 karar haduu ka tilaabay dibad iyo dal 1000 karar waa muuqataa marka waxaan isleeyahay khamiis markuu gaaro oo toddobaadkiisa kuwa dhameystaba lacagtaas 1000 karar uu xiri doona Allu Arjun record cusub oo sameeyay lifetime 1000 karar dhigi jirnay one week hadii 1000 karar lagu kana meesha lagu kala carrey noqonaysa marka guud ahaan barnaamijkan intaas nooga eegay xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambaado alla idmo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh